Dead Sea ama badda dhimatay. Baxrul meed, badda meydka ama dhimatay waa mid aanan nolol ka jirin. Waa badda ugu yaabka badan badaha dhulka. Waana badda kaliya aanan wax noolaa aan ku noolayn. Kalluun ama dhir waa meel ay dhimasho joogta ay ka jirto. Badda meydka waxay dhacdaa xuduudka u dhaxeeya Urdun iyo Falastiin. Falastiinta taariikhiga ah, laakiin maanta qaybta Yuhuudda ay haysato iyo laanta galbeed ay ka dhacda dhulka Falastiin. Magaca badda meydka ama Albaxrul meed. Cusbada biyaha badda dhimatay waxay 9 mar ay ka badan yihiin ama ay ka daran yihiin midda badaha kale, taasoo mustaxiil ay ka dhigtay inuu noolaha uu ku noolaado. Waxaadna ogaanaysaa baddan gudaheeda inay ka jirto geeri sarmad leh oo aad u baaxad weyn. Haddii aadan dabaasha aqoonin, waxaan kugula talin lahaa inaad aado baddan. Marka aad fiiriso, laguma ilo biyaheeda, ayaga ayaa ku haynaya. Culayska cusbada ayaa ka dhigaya kuwa culus, kana culus biyaha kale. Baddan idin muuqata ma aha bad aad u weyn, waxaana lagu qiyaasi karaa inay tahay haro weyn. Dhererkeeda markaad fiiriso wuxuu gaarayaa 70 kilomitir, ballaceedana ugu badnaan 17 kilomitir. Baddan waa meesha dhulka ugu hooseyso 400 oo mitir ay ka hooseysaa heerka badaha kale. Qisooyin cajiib ah ayaa ku wareegsan badda dhimatay, sida inay ka dhacday qasfigii lagu sameeyey qowmuluud ama lagu halaagay. Diimaha saddexda ee Ibraahimada waxay si toos ah u sheegeen ama si dadban in magaalooyinkii qowmuluud ee la halaagay ay ku teedsanaayeen daafaha badda meydka. Sawir gacmeed qiyaas ah oo la sameeyey waqti hore halaagii qowmuluud. Baddan markaad fiiriso waa midda ugu soo jiidashada wanaagsan badaha caalamka, ayagoo dadka intiisa kale ay u imaanayaan qisooyinka taariikhiga oo ku haraysan badda dhimatay. Waxaa kaloo xusid mudan inay leedahay qiimo dhaqaale, sababtoo ah waxyaabo badan oo badda gudaheeda laga soo bixiyo ayaa laga sameeyaa waxyaabaha loo isku qurxiyo ama kareemaadka la isku qurxiyo. Baddan waxay ka mid tahay harooyinka waaweyn ee qarka u saaran inay guraan, sida badda Araale, Kazakhstan, Aasiyada Dhexe. Waa bad xiran, waxaana ku shubo hal webi oo aan aad u weynayn, kaasoo ah webiga Urdun. Waxaa jira mashruuc ay wado xukuumadda Urdun kaasoo ah in tuubooyin waaweyn biyaha looga keeno gacanka Aqaba ee badda cas laguna shubo badda dhimatay Albaxrul meed. Laakiin lama xaqiijin karo in mashruucaas uu soconayo iyo in kale, maadaama dalka Urdun uu yahay dal dhaqaale ahaan aan aad u wanaagsanayn oo aanan tabar u lahayn mashruuca intaasi la eg. Maxamed Serjuu, RTN TV, Bada.